Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada muuqaal cusub iyo qado yar oo simple ah. Waxaan samaysanaa fish ama malaay insha Allah oo fudud. Kabsari toona kusoo darsaday marka uu qabow yahay fridge-ka kasoo bixiyay. Marka waa xashanaynaa already. Saliid yar ku darsanay cusbo xawaajiyo. Hada spices wixii ku yaalo hana ka badan insha Allah. Xawaajiyada fara badan gaas ay leeyihiin in la iska yareeyo. Kalluunka ama malaayga sidaan oo kale u samaysatid maasha Allah waaye faa'iidinka ma dhimayso waa uumitaad oo macaan badan oo simple ah. Marka waa kaasa waxaan la jeclaystay inaan malaayga niila wadaago maanta videoga insha Allah sida loo sameeyo malaayga ama kalluunka waa ka heli doontaa insha Allah soo baraway macaan waxaad rabtaa ku cuni kartaa marka liintan mar walbo hilib ama hadaa sameynaysid ama fish ha ka tagi liinta insha Allah tastiya siinaysaa liinta wanaagsan tahay dhadhanka cunada ee soo saartaa marka muhiim waa insha Allah cafan wili hergaba iska jiro marka inta xanuunsan Ilaahay noo caafiyo inta dhimatan Ilaahay u naxariisto kitaabkooda midigta Allah ka siiyo masiibadana Allah naga wada insha Allah marka waa soo xashanaynaa si fiican marka soo xashay kadib sidaan u sameeynayo waa isla arki doonaa waa si yar oo fudud oo simple ah oo saliidna oo ka dhuuqayna ama saliid far badan ama malaayga faa'iidadiisa aad iska dileenin faa'iidada malaayga ayaa la iska din insha Allah sidaan loo sameysto saliid yar aad dabka soo saarta taawadii waxir saliida ku soo shubay saliidana ha ka badan insha Allah inta saliida ka badan lama isticmaali doono marka hadda saaid inta oo karkari maadaama barf oo yahay dabku u dheer yahay laakiin malaayga ama fishka waxa ay barf badan uu leeyahay marka dabka ku soo ridanayna ama taawada ku soo wada shubanayna kadib waa gadgadinayna labada dhinac kala yar inoo soo saaro saaidna uma karinayno mar labaad hadana karinayna waa ka bixinayna markaasaan uga gadino xogaa kala karabno oo ku soo baxo kadib siiro macaan badan waxyaabo badneen oo spices kan ina ka badinin fishka saan oo kale u samaysatay waa ka heli doontaa waxa rabtaa muufa ku cuni kartaa canjeelo bariis anaga bariis ku cuni doonaa insha Allah waa qado yar oo simple ah oo macaan badan oo 5 minutes oo ilmahan si qurux badan ay ku cunayaan marka insha Allah waxyaabaha shiilan la iska ilaaliyo caafimaadku ma fiicno mar walbo cunada uumitaadka ama cunada la huuriyo caafimaad badan marka hadda laba dhinac soo gadsanayna kalluunki marka kalarka rabno saaid uma dubayno laakiin waxaan rabnaa in xogaa yar asii saliida ee isqabsadaan hadda diyaar uu noo yahay marka hadda waa soo baxsanayna ama taawada waa ka bixi doonaa insha Allah soo dhawaad insha Allah asxaabteeda quruxda badan ay soo biirayso waa mahadsantihiin kun iyo koojitaankii ayaan leeyahay asxaabteeda hor u joogtane la'aantiina waxba ma bihi kor ha leey qaado insha Allah waxyaabo badan oo qurux badan mar walba channelka waa ka heli doontaa waa nutrition baby and protein koritaanka caruurta muhiim waa cunugaada inaad si qurux badan u korisid waxay qayb qaadanaysaa caafimaadkiisa maskaxdiisa cunug kali in la siiyo xataa maaha ilmaha waxyaabo badan u baahan yihiin jadwaladaas waxaa soo dhan waa ka soo hadli doonaa insha Allah hadda waa inoo diyaar kalluunkii marka waa ka baxsanayna kalar saaidna ma aha normal ahaan caafimaad uu fiican yahay dabkan saaid kuma dhagin ونسان already waa isticmaali kartaa waa cuni kartaa laakiin mar labaad hadana dabka ku celinayna uu mitaada u rabnaa marka saliid ya ka bixinayna saliid markii laga bixiyo sida aan yeelayno insha Allah waa isla arki doontaa malaayga sidaan hada u samaysatid aas forno kalena ku sameysay amal waa uu ka macaan yahay marka hadaad fornahaysan sidaan u sameyso waa siiro fudud oo uumitaad oo waqti badan uu ka qaadanaynin marka muhiim waaye ilmaha in la siiyo weekly 2 mar ilaa 3 mar si hilibka cad ilmaha muhiimad far badan uu leeyahay baruurta saaidkan ilmaha yaa la iska siin insha Allah hilibka cad loogu dadaalo hadoo markaas allergic ka qabin hadan saliida waxa ku soo darsanaa basal hal xab basal aan soo jarjaranay marka waa taawada ku shubeynaa marka waxa ku dareen kalena waa isla arkeena basasha iyo waxaan raacsan doonaa kareemka caanaha oo kareemka aan ku darsan doonaa caanahaas macaan ka chickenka ama malaayga kale ama fishka aan ku sameysto macaan wax kala waaye marka insha Allah caanahaas isticmaala macaan waaye waan ka helaysaa cunada dhadhan qurux badan ku siinaya faa'iido badan ilmaha way u leeyihiin jiiska caanaha ilmaha waxyaabaha oo ilmaha koriye ka mid tahay marka insha Allah loogu dadaalo cunuga isku dheelitiran in mar walba la siiyo waxay qayb qaadanaysaa caafimaadkiisa cunuga 5 sano ugu horeeyo difaacoodu wuu yar yahay marka mar walba waxa la hooyada waxyaabo difaac kor u qaadayo inay isticmaasho
muhiim waa marka maanta hirgaba saaid ii haayo marka cafwan insha Allah codkayga hadduu xiran yahay ka raali ahaada toon iyo kabsar oo saaid ahayn maadaama fiishka daada kusoo xashanay ama malaayga hadda wax yar la u baahanahay wax yar ku daray iyo basashi markay basashi iyo saliid isqabsadeen kadib waxa ku soo darsan doonaa caanihii insha Allah caanaha isticmaalana waa caanaha kareemka caana caadi waa isticmaali kartaa caanaha kareemka maasha Allah aniga marka baas iskorisko kale hilbaho kale waa u isticmaalaa toona ku soo darsanay iyo wax yar xawaaji oo isku dardar waaye hadartu waa iska dhaaf kartaa already hadda waxaan ku soo darsanay caanihi waaye oo kareemka ahaa marka caanahan iyo malaayga ama fiishka waa la isku darayaa marka isqabsadaan waxa ka soo bixi doona wax yar oo macaan badan oo qurux badan oo ilmahan ay ka helayaan insha Allah oo macaan oo dab aad ku dilin hadda marka waxa ku soo shubanaynaa malaayga kadibna waa daboolan doonaa waa u miteenaynaa 10 ilaa 15 daqiiqo aad dab ku deena marka isqabsadaan kadib waa inoo diyaar already malaayga hadda biseel oo noo yahay laakiin u mitaada u dhimo soo maaha inuu u mitaad noqdo waa la daboolayaa marka sidoo ku soo bax insha Allah waa isla arki doonaa janalka oo cusub yahay asxaabtida quruxda badan kor ii qaada insha Allah like waxay ka caawinaysaa dadyo fara badan inay arkaan dhiirigelin ay noqonaysaa commenti quruxda badan waa idinka mahadcelinaa insha Allah marka waakaas in share gareeya idinkoo mahadsan gruubada oo page-ka iyo TikTok-gana waxaan jeclaan lahaa inaa kor ii qaadaan asxaabtida quruxda badan ii soo booqataan janalka waxyaabo badan waa ka faa'iidi doontiin waana ka faa'iideen waa maasantihiin jazakallahu khayran ayaan ilaa sida quruxda badan mar walba ii saboodeysaan ii taageereysaan mar walba dhiirigelin ayay noqonaysaa waa maasantihiin asxaabteeda quruxda badan haddana diyaar oo noo yahay wuu noo soo bislaaday marka uu mitaad 15 daqiiqo ilaa 10 daqiiqo ugu filan bariis cad aan soo karsanay marka bariiska anoo karinaayo nima tusinin waqti uu heli waaye marka bariiska diyaar waaye bariis oo cad waaye qudaar badan lagu darin maadaama lagu cunaayo malaay oo isku dheeli tiran sabiibaan ku soo darsanay decoration waaye hadda haysan waa iska dhaaf kartaa sabiibkan ilmaha faa'iido badan oo leh vitamins badan ilmaha si dhaqso leh ku caylaan vitamins badan ka buuxo ilmaha biyo ahaan inta lagu shiido cabitaan ahaan juice oo siisan kartaa ama saan oo kale cunada ugu dar muhiim waaye insha Allah asigana sabiibka anigoo isticmaalaya cabitaanka dhigayna waa niila soo wadaagi doonaa iyo qaabka ilmaha loo siiyo janalkan uu ku jira insha Allah dib u raaca waxyaabo badan ka faa'iidi doontiin oo caruurta haddana waxa ku sharxanaynaa waa kabsarta ayadana vitamins badan ku jiro qudaaraha waa la raacsistaa ayadoo caadi waa soo nadiifinaysaa soo jarjaranaysaa hilbaho kale waa lagu sharxdaa waana la cunaa decoration way tahay waana caafimaad insha Allah ogaada kabsarta in la kariyo leh hadaad ogeedeen ayadoo la karina waa la isticmaalaa marka daliin dhanaana iska soo saaranay as decoration waaye marka waa ka diyaar waaye muxuu ka tuugayaa mid foorno lagu kariyo in foorno lagu kariyo la moodaaba kalar qurux badan oo macaan badan caaraf marka bariiskeena iyo fiishkeena isku qabanayna qado wanaagsan caafimaad iyo cimri dheer insha Allah la nasiyo inta heysatana ilaahay ha u barakay inta heysana Allah siiyo marka waa kaas qado yar oo simple oo macaan badan amaanta niga soo tuure asxaabteeda quruxda badan waa kaas inay ka faa'iideyna rajeynayo wax yar ba ahaatee basbaaska saaidka u jecelnaa marka basbaaska hadaad jecleen waa iska dhaafi kartaa anaga ceeriinka qajajam Itoobiya ma daris la ahaan jirnay marka waa kaas intaasna waa iskafta cafwan marka waa kana basbaaskiyan soo saaranay macaan ku dhaaqada macaan badan oo simple ahayd oo waqti badan qaadanin muhiimna waxa waaye ina mar walba cunno isku dheeli tiran ilmaha siisid ama familka waxay qayb qaadanaysaa caafimaadka qofka bini'aadanka cunno isku dheeli tiran oo isticmaalo insha Allah marka waa kaas had qadina oo bariiska ahayd sidan quruxda badan ee ku soo baxday waa maasantiin asxaabteeda quruxda badan haddana anaan iyaga dhadhamin doono ama qaabka ku soo bax insha Allah intaan ka xigantaa kulmi doono assalaamu calaykum waraxmatullahi